السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiwaxid Awees. kusoo dhawaada warbixin ku saabsan wadanka Belgium. Belgium waa wadan ku yaal waqooyi galbeed ee Yurub. Waxa uu xuduud la wadaagaa Netherland dhanka waqooyi, Jarmanka dhanka bari, Luxembourg koonfur bari iyo Faransiiska koonfur galbeed. Sidoo kale Belgiumka wuxuu xuduud la leeyahay badda North Sea dhanka waqooyi galbeed. wadanka Belgium waxay madaxbannaanideeda qaadatay sanadka markuu ahaa 1830kii waxayna ku fadhidaa bad gaaraysa 30,689 kilomitir square taasoo u dhiganta 12,849 square mile. Belgiumka waxa uu leeyahay shacab gaaraya 12 milyan iyo bar taasoo ka dhigaysa wadanka 22aad ee ugu dadka badan adduunka iyo wadanka 6aad ee ugu dadka badan dhanka Yurub. magaalada caasimaddu ah waa Brussels, waana magaalada ugu weyn wadankaasi. Brussels waa gobolka ugu qanisan xagga GDP-ga qofkiiba. sidoo kale magaalooyinka kale ee waaweyn ee leedahay Belgiumka waxaa ka mid ah Antwerp, Ghent, Charleroi, Liege, Bruges, Namur iyo Leuven. Belgium waa dal madax bannaan iyo boqortooyo dastuuri federaal leh, waxayna leedahay nidaam baarlamaani ah. abaabulkii hay'adeed waa mid adag oo ku dhisan qaab goboleed iyo mid luuqadeed labadaba. Belgiumka waxay hoy u tahay laba koox oo bulsho oo waaweyn dhanka luuqadaha, waxayna kala yihiin Flemish Community, bulsho loo yaqaano kuwii Flemishka ahaa kaasoo ku hadasha luuqadda Dutchka ama Hollandiiska, taasoo ka kooban qiyaastii 60%. sidoo kale community-ga labaad waa French Speaking Community, bulshada Faransiiska ku hadasha, kuwaas oo ka badan 40%. sidoo kale waxaa ku nool bulsho yar oo afka Jarmanka ku hadasha oo tiradooda lagu qiyaaso 1%, waxayna ku nool yihiin bariga Cantonos. magaalada Brussels waxaa si rasmi ah loogu hadlaa luuqadaha Faransiiska iyo Dutchka, inkastoo Faransiisku yahay luuqadda ugu badan ee lagu hadlo. Belgium waa wadan aad u horumarsan oo leh dhaqaale dakhli sare leh. waxay leedahay heerar aad u sareeya oo nolosha ah, tayada nolosha, daryeelka caafimaad oo aad u sareeya, waxbarasho tayo leh, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay midka ugu sareeya dhanka waxbarashada. heerka horumarka aadanaha waa sidoo kale meel ay ku wacan tahay Belgium. Belgiumka waxay sidoo kale ku jirtaa mid ka mid ah wadamada adduunka ugu amniga fiican. Belgiumka dhanka cuntada markaan ka eegno waxay caan ku tahay shukulaatada, waffles, hilibka shiilan iyo biirka. inkastoo Belgiumka ay leedahay cuntooyin aad u badan oo kala duwan, haddana waxay caan ku tahay hamburgerska iyo spaghetti-ga. heerka kobaca sanadlaha ee dadka reer Belgium mid aad u hooseeya. guud ahaan heerarka dhalashada iyo socdaalka waxay ka sareeyaan heerka dhimashada iyo dhoofka waxyar uun. waxaa la sheegaa dadka ku nool Belgiumka 17.2% inay ka hooseeyaan ama ay jiraan 15 sano, halka 15 sano ilaa 20 jir ay yihiin 17.7%. 30 sano ilaa 44 sano age-kaas ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin 19.5%. 20.7% waa 45 ilaa 59 inta u dhaxayso. 60 ilaa 74 sano ayay jiraan ayaa leeyahay 16%. 75 ilaa 84 sano ayay jiraan ayaa leeyahay 6%. 85 sano ilaa wixii ka weyn waa 2.9%. wadanka Belgium waxay madaxbannaanideeda ka qaadatay wadanka Netherland, waxayna ku dhawaaqday madaxbannaanideeda 1830kii, waxaana loo aqoonsaday 1831 inay tahay dal gooni ah. Leopold I wuxuu ahaa boqorkii ugu horreeyay ee reer Belgium, waxa uuna dhashay 16 Diseembar 1790kii, waxa uu geeriyooday Diseembar 10keedii 1865. waxa uu xukunka Belgium qabsaday 1831 ilaa dhimashadiisa. diimaha ay aaminsan yihiin dalkaasi Belgium ayaa lagu qiyaasaa Catholicism-ka inay yihiin 60%, taas oo ka badan diin walba oo ka jirta wadankaasi Belgium. dadka aan diimaha haysanin ama loo yaqaan non-religionka ayaa lagu qiyaasaa 21%. Islaamka oo ah diinta ugu weyn dunidan ayaa lagu qiyaasaa 5%. Protestantism oo ah qayb ka mid ah Christianity-ga ayaa lagu qiyaasaa 3%. Other religionska ama dadka diimaha kale haysta ayaa lagu qiyaasaa 7.6%. GDP-ga wadanka Belgium waxaa lagu qiyaasaa 533.1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. lacagta laga isticmaalo wadanka Belgium waa euro.
iyadoo loo marayo heshiiska caalamiga ah ee PLEU lagu soo gaabiyey Belgium Luxembourg Economic Union ayaa Belgium iyo Luxembourg waxay isku mideeyeen lacagahooda sanadkii markuu ahaa 1921. Inkastoo Belgium frankigu hoos u dhacay marka loo eego doolarka Mareykanka ahna waxay adkaysatay qiimaheeda lacagaha waaweyn ee Yurub. Sanadka markii uu ahaa 1995 halkii doolar ee Mareykanka wuxuu la mid ahaa 29.48 frank oo Belgium. Isla 1999 halkii doolar wuxuu la mid noqday ama wuxuu gaaray 34.77 frank. Sidaas darteed 1999 Belgium waxay ku biirtay EMU ama European Monetary Union oo samaystay hal lacag ah taasoo ah euro. Lacagtaas oo ay ka wada midaysan yihiin wadamada Yurub. Waxaan jeclahay inaan muuqaalkayga halkan aan ku soo gabagabeeyo.